kuwan ay arkaysaan waa calool ajnabiya. su-aasha waxay tahay ma kuwan ma ka liitaan kuwan ma ay ka caqli yar yihiin see wax u jiraan? jawaabtu waa iska caddahay. kuwan waxay haystaan taageero iyo facility, dowlado taageero lacag geliya, qarash la daba taagan, technology waxaa waxay tuul u baahan yihiin, macalimiin si fiican u tababaran oo dhaqaale fiican haysta. kuweenuna ma haystaan wax facility ah. haddii la siiyo la geliyo la maalgeliyo toolska kuwaan haystaan la siiyo kale wax way baran lahayn computer programs ayagoo yaryar inoo software samayn lahayn company insha allah tomorrow noo samayn doon. Assalaamu calaykum, waa Mukhtaar, maamulaha Hindu Schools oo ku yaala Burundi. insha allah maanta waxaan rabaa halkan waxay ka hadlo horta marka hore warbixinada la qaybsan doonaa intaan taa la gaarin waxaan rabay inaan waxyar ka yaraado ujeedooyinka marka hore iskuulkan u sameyn. koley maro badan waan ka hadlay iskuulkan ma aha iskuulaadka kaleeto ama wadankeena ku yaalo kale. sababto waxay tahay anagu waxaan xooga saaraynaa bulshada kale caalamka inaan ku dayano inkastoo iska tabareynaa Soomaali ahaan, laakiin waxaan doonaynaa bal iskuulkeenu inuu la qabsado iskuulaad kaloo aan ka dawageyno caruurta wadamada kale horumaray sida Singapore oo kale iyo wadamada warshadaha leh caruurtooda technology xooga saar. kan insha allah wuxuu iskuulaad kale wadanka uga duwanaan doonaa. waxaan xooga saaraynaa insha allah technology waana soo gaarsiinaa level ah inay isticmaalaan computer programs oo ilmaha yarka insha allah primary markaan furno in caruurteenu ay wax code garan karaan, wax programming karaan, ay games waxyaala samayn karaan insha allah. iskuulka hadda waa kindergarten ama waxa la yiraahdo xadaanad, laakiin halkaa kuma ekaana insha allah sanad dugsiyeedkan cusub waxaan ku diri doonaa hadii la yiraahdo primary in qaadan doonaa classyo oo kooban badnayn insha allah, maybe classyada sarena inaan ku daro 1 iyo 2 because waxaan rabaa inaan aakhir soo kordhino computer programming inaan kusoo darno oo dad yaroo ka bixi karana insha allah aan furno arday xisaab ku fiican inaan qaadano dugsiyada sare ama hal class oo maybe dugsiga sare ama ka dhaxaa inaan qaadano si ilmahan aan ugu diyaarino insha allah mustaqbal ka fiican kan anaga ka dhaxalno waalidkan. wadankan waxba ma soo saaro waxna ma dhoofiyo, laakiin warshadii waana lagu hormaraa at least aan ka daba tagno xagga technology aan barano sida wax loo koor gareeyo ilmahana aan barno si markaan mustaqbalka ay shaqo ugu raadstaan dibadda. caalamka internetka isku xiro waa hal guryo weyn caalamka. haddaa taqaana xirfad adoo meeshaada jooga shaqo tegi kartaa. marka ummadaha kale way maalgeliyaan caruurtooda. halkan ma jirto africa oo dhan ay haystaa mashhuuradan ma jirto wax ciyaalka maalgeliya oo usoo jeeda bal in bulshada kale si u fikirayso caruurtooda ugu diyaarinayaan mustaqbalka xagga technology. maanta wax walba technology waxay ku shaqeeyaan software. marka Singapore kale waxaa arkaysaa ciyaalka yarka ah kindergarten yaa lagu sii barbaarinaya in ay la qabsadaan technology-ga oo mathka iyo science ku fiicnaadaan. kuweynina waxay iska noqdeen wax un mashruuc. marka insha allah himilo dugsi yar oo hami weyn uu ku jiro kelmadda himilo waxay u dhigan tahay aspiration wad English. insha allah taasaan u taaganahay. halkaan u furnay inaan dadka sida maqaayadoo kale aan noola kalaasano. waxaan u furnay bulshada inaan siino option ka duwan wixii kale ee meesha yaalay oo iskuul yaroo ka duwan oo noqdo wax yar oo kooban dad ay dhigtaan, laakiin dadkaa kasoo baxa ay noqdaan mustaqbalka dad loo aayo wadanka wax kusoo kordhiya insha allah oo generationka dambe horkaca hadii la yidhaha. waan salaamayna waxaan halkaa idala qaybsanaynaa oo soo socda videoda dambe aad ku daawan doontaan qayb kamid a clips aan kasoo qaadnay caruurtii iskuulkii si dadka aan markaa joogin iskuulka ama aan hore u arkin ay fursad u helaan gudaha waxa iskuulka sida hawsha u socoto iyo waxa ka socda facilitieska wixii aan keenna caruurtii ku cayaarayeen waan soo bandhignay qayb kamid a. qaybna insha allah waan kusoo socnaa. alaabta qaarkood kaaman kuma taalo wixii anaga aan samayn karna anagaa sameynay. wadankan wax walba dibadda laga keenaa, wax walbana lama hayo dibadda yaala. marka waxbaan dhifnay wixii aan samayn karna waa farsameynay. inta kalena insha allah waan raadinaynaa wixii kala qalab caruurta markay tirada soo kordhaba waan kordhinaynaa insha allah. halkaa horena waxaan ka samayn doonaa insha allah basketball court ama volleyball court. wadankan waxay caan ku yihiin kubadda cagta keliya, cayaarana waxay haystaan kubadda cag. adduunka wax kastaa la cayaaraa, volleyball la tennis la cayaara. caruurteena waa u helaan chance waxa caalamka laga qaadan inay cayaari karaan. insha allah ila qaybsada muuqaalada soo socda. salaam.
voice here. Maybe how was it? How was it? How was it? Okay, Ryan. Hassan, are you ready? Thank you. Okay. What's your name? Kurhat. What's your name? What's your name? What's your name? Good, good, good. Okay.